Croatia oo Brazil ka reebtay koobka adduunka xilli loo saadaalinayay ku guuleysiga tartankani. Kulan xiiso lahaa ayaa dhexmaray xulalka Croatia iyo Brazil kulan ka tirsanaa wareegga sideedamaadka koobka adduunka kulan ka dhacay Education City Stadium. Kulanka ayaa ahaa mid isku dheelitirnaa inkastoo xulka Brazil ahaa xul fursado badan helayay ciyaarta. Xulka Croatia ayaa ku fiicnaa dhanka difaacashada waxayna ku dhibaatoodeen in ay wax fursada ay ku sameeyaan labada qaybood ee ciyaarta xilli ay kaliya ay ku ikaayeen daafaca. Xulka Brazil ayaa wax walba sameeyay laakiin waxaa ka maqnayd in ay goolal u baahnaayeen fursadaha ay sameeyeen ay ka faa'iideystaan. 90 daqiiqo ee ciyaarta ayaa ku dhamaatay barbardhac eber xilli ay labada xul ay ku kala bixi waayeen ciyaarta waqtigii dabiiciga ee loogu talagalay. Waxaa la isla gaaray waqtigii dheeriga iyadoo labada xul ay raadinayeen goolal ay ciyaarta hoggaanka u qabtaan. Xulka Croatia ayaa waqtigii dheeriga ahaa ee hore helay fursado cajiib oo ay goolal ku dhalin kareen laakiin waxaa si lama filaan u khasaariyay fursadahaasi ciyaartoyda xulkaasi. Daqiiqadii 106aad ee qaybtii hore ee ciyaarta ee waqtigii dheeriga ayaa xulka Brazil dhaliyay gool qurux badan waxaana u dhaliyay xidiga Neymar kaasi hoggaanka u dhiibay xulkiisa. Xulka Croatia ayaa isku dayay in ay ku soo laabtaan ciyaarta laakiin xulka Brazil ayaa difaac adag galay si ay goolkaasi u ilaashtaan isla markaana ay u qaadaan weerar rogaal celis ah. Xulka Brazil ayaa bilaabay in waqtiga ay lumiyaan halkii ay ka raadin lahaayeen goolal kale oo ciyaarta ay ku dili lahaayeen isla markaana ay cadaadis saari lahaayeen ciyaartoyda xulka qaranka Croatia. Laakiin arrintaasi ayaa dib weyn ku noqotay xulka Brazil kadib markii daqiiqadii 116aad ee ciyaarta xulka Croatia ay dhaliyeen goolka barbaraha una dhaliyay xidiga lagu magacaabo Mislav kaasi oo ciyaarta ka dhigay barbaraha lihala. Kadib markii ay labada xul barbardhac ku dhameysteen waqtigii ciyaarta loogu talagalay iyo 30 daqiiqo ee lagu daray waxaa la isla aaday rigooreyaal si loogu kala baxo isla markaana mid ay guusha u raaci lahayd labada xul. Waxay guusha raacday xulka Croatia kuwaasi oo ku badiyay rigooreyaal 4-3 kadib markii xidiga Rodrigo ee Real Madrid laga qabtay rigooradii halka xidiga daafaca uga ciyaara xulkaasi Brazil ee Marquinhos uu birta ku dhuftay rigooradiisa. fadlan haddaad ku cusub tahay horyaalka ciyaaraha adduunka like inoo saar subscribe share barnaamijkeena asxaab badan u gaaro mahadsanidina.